السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنن كحمسوني هنا هداد كعصب تهي سبسكراب بنوصار هداد هرول سعودي لايك يوشير في أصحاب تهدو أكارتو maanta waxaan idin haynaa todoba cunto oo timaha bixiyo. Hormadan waxaan ku soo qaadanaynaa cuntooyinka timaha bixiya isla markaana caafimaadkooda horumariya. Cuntada aad qaadato ayaa dheef u noqon timahaaga, taasoo korriimo iyo timo caafimaad qabta ku siisa. Haddaysan timahaagu helin dheef ku filan, waxay u baxayaan si tartiib ayagoon xoog iyo mug weyna yeelanaynin. haddaad aad ku dartid cuntadaada cuntooyinka hoos ku xusan oo aad si nidaamsan u qaadatid, waqtigeed ayaad ku arki doontaa horumar ku imaado timahaaga. Hilib gaduud. Dhirta cuntada laga helo oo ku yaraato waxay kugu sababtaa inay bidaar kuu keento ama timaha kaa rifmaan. Hilibka gaduudka cas ayaa laga helaa maadada iron. Kalluunka gaar ahaan noocyada la yiraahdo salmon, tayron waxay ku jiraan borotiin iyo saliid dabiici ah. Ukun waxaa ku jira vitamin B kaasoo kor u qaada koriimada timaha iyo caafimaadka lafta madaxa. Moos iyo qamadiga. Cuntadan ayaa laga helaa macdan la dhaho siliga, taasoo horumarisa dhumucda timaha adoo xoog saara cunida. Cuntada qaniga ku ah macdanta ayay timaha ku caawin doontaa inay xoog iyo dhumuc wanaagsan oo joogto ah yeeshaan. Caleemaha cagaarka badan. Caleemaha cagaaran sida koostada. Bocorka jaalaha ayaa laga helaa macdanta zinc, taasoo dhalisa androgen. Waa hormoon la'aantood ay la xiriirto inay timaha ka daata. Baradho macaan. Baradhada ayaa ka buuxda beta carotene, taasoo jirkaaga u beddelo vitamin A, waxayna nafaqo u tahay timaha iyo jirka. Vitamin A ayaa timaha ka difaaca inay ka xumaadaan. Digniin. Cuntada qaybtooda ayaa laga yaabaa inaad xasaasiyad ku qabtid ama ay kuu keenaan cudurro haddaad isku badisid. Haddaba si habboon u qaado lana tasho dhakhtarkaaga hadday kuu keenaan caafimaad darro aadan isku arki jirin. Waa mahadsantihiin.